الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي في العقيدة عموما تاريخ marka laga waramayo faa'iidada koowaad ee taariikhdu leedahay waxa weeyaan waa lilcibra waa in lagu waayo arko sida awgeed baynu odhan karnaa qur'aanka kariimka ah in thuluthba ku dhodhow ama saddex meelood oo meel ku dhodhow ayaa qisas ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qiso kaga warramaya naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bima awxaynaa ilayk laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سدراد إلهي سبحانه وتعالى نقول بدن أيو قرآن كقور رمى يا قصو qisada qur-aankuna asbaabo badan bay u soo aroortaa waxaase ugu muhiimsanoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka ku tilmaamaya qisaska in laynoogu sheegayo inaynu ku tafakurno ama ku waaya aragno inaynu ka qaadanno cibar inay noqoto wax lagu waaya arko cibratun liuli lalbaab lacallahum yatafakkaruun markaynu u fiirsanno markaa qisadu sideedaba waxa ugu quruxda badan lee ku jira waxa weeyaan in lagu qiyaasto wakhtiga aad nooshay iyo duruufta aad ku nooshay adigoo ka qiyaas qaadanaya umamkii hore iyo wixii ku dhacay noocan adigu aad u nooshay wixii la mid ah waayo basharku sunna ilaahay u dejiyey subxaanahu wa tacaala joogta ah sunnadaasi waa sunna haabita bay culammadu ku tilmaamaan haddaad samaysana inaad sama helayso haddaad xumo samaysana inaad xumo helayso maadaama ay caynkaasi tahay qisasku waxay u baahan yihiin in badan inaynu u fiirsanno qur-aankana in badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga warramay qiso nebi qiso fircown iyo gaal qiso wadaadda inxiraafay qiso yacnii kullu shay baab kastoo aad qiso ka egto qur-aanku wuu ka warramaya taasi waxa ay tilmaamaysaa inaynu u baahanay qiso dhammaanteedba innagoo laakiin isdu taagayna mawaadic alcibar meelaha cibradu ku jirto ee u baahan in inta badan la eego amase la isdul taago waxaa kaloo mudan oo qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan inoogu tilmaamaya inaynu umamkii inaga horreeyey taariikhdooda daraasayno waxay idhahdaan casri kastoo la joogaa wuxuu u badan yahay cusuurta dambe waa طabca jadiida likitaabin qadiim bay yidhaahdaan haddaad taarikhda dib u fiirsato baalan la mida kanaad nooshahay unbaad arkaysaa oo si kastoo aad u qiyaasto ama aad u qiimayso la mida idan bay yidhahdaan waa طabca jadiida kitaab qadiimoo hore loo soo maray waayo dunida horey u soo mareen dad taalixiina iyo dad saalixiina dad xunxun dad wanaagsan nooc kasta horey u soo mareen sidaa awgeed waxay u muuqanaysaa taariikhduba inay u eg tahay طabca kitaab qadiimoo hore u jiray ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya ina leeyahay qad khalat min qablikum sunan fasiruu fi lardi fanduruu ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala idinka hortiin waxaa tegay sunan baa dhulka tegay ee fasiruu fi lard dhulka socda baa la yidhi oo fanduruu كيف كان عاقبة المكذبين فصيروا في الأرض القرآن كأنت كسار ورته هدادو فرصته أدبدو تعجبيسا آيات تربضا بإلهي سبحانه وتعالى كجور رمية قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها يعني إلهي سبحانه وتعالى هدينا النصوص تكسو أررتي فسيروا في الأرض يقرأ أيها كبضا إن محاضرة لغو أخريه وإلهي ونالي هي قولدي دين كهر ريسيبا وقار ألا هلاقي وللكافرين أمثالها سيدا أوجد تاريخ الدراسة وباهنتي دراسة أن تمتع هين بوباهنتي دراسة أن كرا حيث قرا هين إن لسدول تاغم مالها عبرة وين لبوباهنتي أممكو حتى دتك أميينتي حتى أممكان وحقورين انت بدن إيه كوا وحقورين بدن وكم دبا علامات جرى تاريخ تكو علامات صدان مثلا وحا ما هذا الله يراهدا ودعday قصة dhacday oo weer yaro kooban lagu xifdiyay oo markastoo dhacda la mid ay timaadaba ما هذا الله شيء واحد لأن كان هبل وافتهن ما دوا محي ووضعك هدا يالله أيوه حقوق قياس قادنا يا دعضة هرود دعضة يو كوتشانغو أن سدرات دد ما هذا جبي جدوبا وعلامة تاريخ ده العلامة ديون ودعضة كم ده دعضة إنك تاريخ ده ولا علامة دي جبي قال الله ميدا جبي ده أنت بدن تاريخ ده واللو علامة صدا ودعضة يندعي تاريخية يا جبي يرو كوباني وتل ما قصاد وترى بدن له ولذلك waxaynu u baahannahay sideedaba qisada maanteed inaynu aad ugu noqono taariikh muslim mid walba waa ilaahay quraanka mid gaal iyo mid muslim oo kaga waramay mawadic al-ibar kana inaynu isdhex taagno ama isag taagno dariskan maanta la qoondeeyna waxa la yidhiina ka waramo taariikh andalus taariikhdeeda si ساعد يبرنا وشجعنا قرن مايا أندلس دولة الأموية لبي سجاشن كي هجرية ده أيالا فرطي طارق بن زياد يا موسى بن نصير قائد كان لورنشري طارق بن زياد ودري لبي سجاشن كي بيلعبين فرشدي أندلس يوجوه الرئيسي أندلس ووطن كي يرى إيبيريا لورنشري أما وجزيرة ما أنت عنكا إسبانيا برتغال أيو بدنيهين غرناطة وآخر مملكة إسلامية غرناطة مقالة هذا الله يرهدا مملكة دي قدام بشيء إسلامي هذا يكبح هذا سداد بقول تضبي يسقاشن كي محرم كودة دي بالله قصة صار آخر الملوك أبو عبد الله نكى هو يدي قبل جو تيرين رسائل هايد بغرطويات سيد الرجع إلى لين ويدي سيد الدمر كوجو قبل أبو يتيرينس يبكي مثل النساء قبل يكشرو وأي تلمام الشهادات سيد الرجع إلى شنكر ويدي سيد الدمر كوجو وحليني مركي وجودن بيسيو كدقاقي معاهدة أيوك كجبحي معاهدة مركي لك على الصحة ودونيه فلوس أكتر قدبوا أجي قصرية دي سيو حيسي مركاسائل مكسود ده ديبال ليلي هو يدي بمركا وارد تنكتري وتاريخ مركا سداد بقول يشان سنادات ككوبان سداد كدقيقين اللي سيها دانو غيبيو طبعا كي سنادات بحال دقيقانو هيا طبعا كي سنة تاريخ ده كم دابا هل دقيقة يكسو بيجمية مركا وأدكتي تاريخ أندلس إن كجور رنّه سداد دقيقة يوحلا ميدا عموما أندلس لبي سجاشن كي لقى بلابه إلا بقول سداد يصدم كي هجرية ده وحي هو سيمني سي الخلافة الأموية مركي الخلافة الأموية يدعدي الدولة العباسية يمشى قبصتي ويل دلني يرى أمويين تكمدا أي دلكي كبحصدي ولا الذي لدلي يساقي بحصدي وحو الصعدة وحو قاري ودن كاسي عبد الرحمن الداخل لو صقر قريش إنك اللي بحيي دولة داسي سجى دبوا أساستي سجى غريب أبو ودن كانت جاي وحباها سنين لكن دولة بمضير كجدستي دبتنا دولة وبلارن أيودسي دوري صدق سنة بانفليا فري صدق سنوات
ayuu xukumayay waqtigiisii intii badnayd tawraat bay kaga dhacday 25 tawradood ayaa ku kacday 34 sannadood ee uu maamulayay akhiiran 170 meelaha markay maraysay ayuu wadanku istiqraarkiisii sugmay madiinada caanka ee madiinada zahra la yiraahdo qurtuba ku taala ee taariikhda mudankii ugu caansanaa dunida ahaan jiray ugu quruxda badnaa ayuu waqtiga dhisay masjidu qurtuba oo masaajidka weyn abuu bilaabay ilaa iyo markii dambe masjidu qurtuba sidii loo weyneynayay 1200 oo tiir buu markii dambe lahaa masaajidka tiirarkiisu bilariskiisu 1200 isagoo 1200 bale oo kiniisada ayuu haddana ka dhisan yahay qurtuba wali masaajidkii waa dhisan yahay laakiin hadda waa kiniisad taariikhdaasi dheer ee wadankaasi leeyay waa taariikh maasi tiro badan leh ama meelo madmadow oo aad u fool xun oo tiro badan leh meelo aad u qurux badan na leh waa taariikh markaasi runtii daraasadeedu ay tahay taariikhaha ugu fiican in la daraaseeyo waayo waa taariikh isbedbedelkeeduna badan yahay asbaabta keentay isbedbedelkana markiiba aad isha ku dhufanayso aan wax badan oo u fiirfiirsi badan kaaga baahnayn marka aan soo koobo haddii aan taariikhdan maraaxil u qaybino marxaladda hore waa marxaladaasi dhismaha koowaad ee ninkaasi dhisay kadib inaanu dhalay baa ka uga dambeeyey kadib inan kale u awowyaha uga dambeeyey qolada hore waa iska fiicnay laakiin waxaan jeclahay meesha u baahan inaynu si fiican u daraasayno inaan isu soo dultaago taariikhdani markay muddo socotay ayaa ninkii ugu dambeeyey wakhtiga aan rabo waxaan rabaa cahdigii muluku tawaa'if ay talinaysay cahdigii ugu fitna badnaa inaynu tagno ee taariikhdaasi ka mid ah waa cahdiga loo yaqaano muluku tawaa'if ama boqortooyooyinkii طائفaadka yaryar ee kala nooca ah muluku tawaa'if waxa ka horeeyay laba boqor oo aad u waaweyn waa cabdiraxmaan الناصر ama cabdiraxmaan الثالث taariikhda bani umayya saddex nin oo cabdiraxmaan la yiraahdo soo maray daakhilkii iyo cabdiraxmaan kii labaad ama thani iyo cabdiraxmaan الثالث nin lagu tilmaamo iyo saddex hishaamkii koowaad kii labaad kii saddexaad cabdiraxmaan الثالث أو cabdiraxmaan الناصر ninka loo yaqaano wuxuu xukumayay wadankaasi 50 sannadood 22 jir isagoo abuu qabsaday waana mararkay ugu qurux badnayd buu wadankaasi gaadhsiiyey nin karti leh oo la kacabsi leh oo dawlad xoogan dhistay oo thawraadkii iyo wixii ka soo horjeedo dhan ka takhalusay oo ballaadhiyay dawladda islaamka ee meesha dawlad aad u qurux badan leh buu ka tagay markaas cabdiraxmaan الناصر dawladdii quruxda badnayd ee uu ka tagay inankiisii baa dhaxlay la odhan jiray alxakam ibnu cabdiraxmaan الناصر alxakam waxaa nin caalima aqoon badan diin jecel alla ka cabsi badan dawlad deganna helay isna dhanka cilmigu isaga faafayba waa maktabadihii caalamka ugu waaweynaa ninkii samaystay 400 oo majalladood bay maktabadiisa ka koobnay isagu nin caalima oo faqiiha buu ahaa muddo haystay laakiin qaltadii ugu weynayd buu galay bay yiraahdaan dawladdii aadka u ballaadhnayd ee meesha ka talinaysay markuu ka geeriyoonayay inama waaweyn ma lahayn inan yaroo uu dhalay ayuu ka dhigay inuu leeyahay wilaayada isaga dabadi culimada ugu da'weynaysiisa 12 jir bay ka dhigaan taariikhda kuwa ugu yareeyana 7 jir adigu nin 7 jir meelahaasi ah daadiisu هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر نكي لو رجري هشام الثالث نكوي يقانين اما المؤيد بالله لغه المامور هشام كامركي ماشى لو ديبي هشام المير بوها ما دام المير اسكاها وصبه سميا معد الى لسه isaga islaanu hooya iyo laba nin oo kale taariikhdaasi mar rabo bitafsiil inaan uga warramo wuxuu mar rabaa mawaadicaan u dan leenahay inaan gaadho waxa isku qabsaday dawladdiiba nin la yiraahdo Muhammad ibn Abi Aamir waa nin qabiil Yaman asalkiisu ka soo jeedo
الحاجب المنصور نك الله بحيويان حاجبك تاريخ ظاهره ورئيس الوزراء وكله نك ومبورك ورك على كلا الدرة أي حاجب الأورن شري حاجب كاسي تاريخ الإسلامي جوهره حاجب كاللقب لو ما سبعين شرين بقركم باللقب لحان شري المنصور بالله وحي إنه مقالله المقتدر بالله القادر بالله مقعيد أسي بقر هذا لحان شري لكن حاجب كي وزراء ما يلحان شرين نجاني ما دام ودولة دي قاعد تسكجر دي جاي لقب وسماستي المنصور لا يراهده سجى قبصدي الدولة دمانتد نمان كي أكتيسيسو مرمريين وكتخلصي صدح نبالة الماما أكتيسا كرد الدوامة وسلاح وحبك وغبصانيان مكيدو ينبو سمي بيد هذا صدح دي بقى وكتخلصي دولة دي سجى قبصدي ويلكي يرانا وحيرين يربطهاي عبادة يسوع بقرض الله ما صاقله هلكا كتير meel buu ku xidhay bay yiraahdeen iska joogi jiray xataa markuu soo baxayo dumarka lagu dari jiray koox dumar inta la raaciyo farda la saaro barnaskan ay qaataan hal yiraahdaa Moroccan iyo Maghribta idinka arka koofiyadan yar ku samaysan khamiiska rag iyo dumar baa nooc ku samaysan bay qaataan nooca inta loo xidho baa la yiraahdaa barnaska la yiraahdo ayuu xataa lagama dhex garan jirin bay yiraahdaan dumarka uu la socdo iyo kooxdaasi galbinaysa cidima arki jirin waa iska cibaadeysan jiray meeshiisaas iska joogay ninkan la yiraahdo al-Hajib al-Mansour baa dawladda haystay laakiin nin aad u cajab badan buu ahaa dawladdii wuu sugay waxyaaba cajabana waa laga tilmaamaa konton iyo laba dagaal buu galay intabana wuu guuleystay walaa qaarna konton iyo afar bay sheegayaan لكن إمام الذهبي كنتن يلا بكرجيا كنتن يلا بدأ قلب وقلي كنتن يلا بدأ غزوة وقلي بوسوق جولست إذا نوح كرجي ودن كي أندلس لورنشري إسلامي جها ودن آن قلبهم قرينين أكتي سعيد الصامرين ضحاك بدن إمام الذهبي وحكت المام يعني كاسه وكان موته آخر الصلاح وأول الفساد لأن أفعاله كانت حسنة في الحال فاسدة في المآل إمام الذهبي في سيري وحورنا يعني كان جاريدي صحي هيدبيد وناقة وحي وقدم بيي أعماشي سنة جاريدي سوناقة وحي وقدم بيي بيهيد فساد كان وحي وقوه الرأيي أفعاشي سنبو يقول واحد هيد حسنة في الحال مركا وقت كان لتشوقه عمل الذي يسمينه عمل الله هذا قرح بدن لكن عدب حمد ضمبه بدن كتجي ويعني كان يوحي سميه خلافه أنا خليف كتلين يقول لك على تلصه إن أنا ودلاي بوجد انتي كينه هالكيبو كسي هيي تدبس النضاد بمالها كسي هيستي لكن صالح يسقونها دولة دي وحبك بحمانين miduu dhalay oo kale ayaa sii dhaxlay ka damba uu dhalay nin fiican ma ahayn wuxuu ahaa nin marka hore hooyadii Faranjiye tahay islaam Faranjiyada dhashay islaamii waliba hadiyaadka boqorrada ay u siiyeen mid kamid ah dhashay shangal baa la oran jiray waxaanu ahaa nin fasaad badan aad u fasaad badan ninkaas dawladii qabsaday akhiiran dagaalo iyo burbur buu isna iskaga dhintay waxa soo baxay in lagu kaco dabeetana meeshii waxa qabsaday nin cusub oo umawiyiintii ka tirsan waxa la yiri waayo shanjalkani wuxuu sameeyay khatarta kale waxay ahayd labadii hore waxa iyagu yiraahdeen anagu xaajibaan wilaayada umawiyiintii ba iskalo muayyid billahi ba qolka dambe ugu jiray war maxaa muayyidkani qolka kaga jiray buu yiri muayyidkana waa ha iska tago aniga ah buu yiri خلافة ولي العهد بوشيكته مركها بعد المؤيد بالله إنه يسوي ولاية لا ولاية أي وريكتي الدولة الأموية أما قريشين تنوي ولاية ضدكم نوع ما هو يقدم بين لكن كان هو عامري يمنية مركها ما وقدم بين أيام ضدكم سيدي لو قدم بين أول واحد يكون معمول يعني حاجبين أما هنا سلطة يعني رئيس الوزراء وكيهي نين محمد بن هشام بن عبد الجبار لا يراهدو مويه با لغو كعيي دبتنا نكاسا ماشي انقلابي وقبصدي وقتها كان وعهد فتنه بلا منطي وقرني الشناد iyo bilowgiisi 400 taariikhda hijrigi markay mareysay weeyaan ninkani markuu meesha qabsaday
caamiriyiintii buu eriyey meeshii buu xoog ku qabsaday waa dawladdii buu isyidhi isku dabarido laakiin looma daynin ee waxaa bilaabmay wakhti fitnaa oo madaxnimadii la ysku laayo oo tiro badani dhacdo taariikhda 400 la joogo ilaa 422kii laga gaadhay waa 22 sannadood 22 sannadood 13 amiirul mu'miniin baa soo maray yani waxaad qiyaasi kartaa markaa fitanka iyo mashaakilka taagnaa sida uu eegaya 22 sano oo 13 amiirul mu'miniin oo kala nooc ay soo mareen waxa dhacay ninkii guriga ku xidhnaan jiray mid ay walaalayiin oo boqorkii weynaa al-Hakam caalimka inuu ku sheegaynay uu dhalay al-Hakam ibn Abd al-Nasir nimuu dhalay oo Sulaymaan la yiraahdo ayaa isku dayay inuu dawladdaasi inqilaabo laakiin wuxuu furay albaab cusub oo aan taariikhda Andalus lagu aqoonin albaabka maalintaasi furmay Andalus wuxuu ka mid yahay waxyaabihii keenay inay burburto markuu arkay ninkan madaxda iyo qolada dawladda haystay inaan uu babacdhigi karin ayuu wuxuu qabtay dawladdii gaalada ee ugu dhaweyd qashtaala meel la yiraahdo qashtaala dawladdii weynayd ee muslimiinta Andalus markay qabtay bilaad sakhar buura yar yar oo la yiraahdo oo badan sare ee Spain ku yaala oo qura ayaa ka harsanaa waqti dabadeed dawladda yar way iska weynaatay dabeetana gudaheeda iska dishay way kala gooday Lyon iyo qashtaala bay kala noqdeen qashtaalo waa castle oo af Carabiga markay qolada Carbeed akhriisay qashtaalo akhri waa qalca dawladda yar oo meesha joogta ayuu tagay wuxuu kula heshiiyay dawladdaasi yar inay saacidaan way ka saacidaan dawladdii Qurtuba ka talinaysay in la inqilaabo ay ku wada duulaan Alfonso in la yiraahdo dawladda tan nimankii haystay wuxuu arkay fursad saciida inay tahay awal dawlad yar oo jisiya bixiso ka dawladda weyn ee muslimka xukunta buu ahaa maantana wuxuu arkayaa muslimkii oo islaynaya fursad buu arkay inay tahay waa ogolahay buu yiraan ku wada duulo waa la wada duulay dabeetana waxa laga qabsaday meeshii iyada ahayd ninkii la oran jiray Muhammad ibn Hisham ibn Abd al-Jabbar al-Mahdi la baxay ayaa qashtaala iyo Sulaymaan ibn al-Hakam سليمان بن الحكم والله بحي المستعين بالله قلده تاريخه waxay yiraahdaan المستعين بالسليبيين buu ayaa مستعين بالله ma hayne intuu qolada soo ka haystay ayaa lagu wada duulay dabeetana dawladii baa ninkii laga qabsaday waxay boqortooyadii dib ugu soo noqotay markaasi wiilashii uu dhalay الحكم ابن عبد الرحمن الناصر wiilashiisii mid kamida oo ah سليمان كان هشام كيبا ولا لا كي غورغا لغو خدي جيري markuu meeshii qabsaday mahdigii jabay ayaa wuxuu la kulmay wiil la yiraahdo al-Fata waadix oo caamiriya caamiriyiintuna oo nimankii xaajibiinta meesha ka ahaan jiray ee laga qaaday Muhammad ibn Abi Aamir qoladu ka tirsanaa weeyaan mahdigani wuu qaldanyo qoladii uu dawladooda baabiiyay ayuu markii la soo eriyaday hadana uu yimiyo uu leeyahay ninkii amawiga aanu iskuurarka ahayn meesha ay kala qabta fatal waadix waa aqbalay laakiin waxay yiraahdeen ninkii uu xoogan yahay malak qashtaalana waa kii ka haysto meesha waa isku qabsadeen kama qaadi karnay maxaynu sameeynaa waa loo fakiray waxa la yiraahdaa aan gaal kala raadino dabeetana mamlakatu Aragon Barcelona magaaladan la yiraahdo ayaa caasimad markaa wahay Barcelona boqortooyo ka dhisnayd oo qolada gaaleed ay lahayd ayaa u yimaadeen boqorkii haystay waxay yiraahdeen waxaanu rabnaa Sulaymaan ibn al-Hakam iyo waxoogaga barbarka oo haysto Sulaymaan ibn al-Hakam kii meesha qabsadayna qishtaaliyiintii mooyaane wuxuu kale la qabtay meesha mooyaane wuxuu soo dhaweeyay qabaa'ilkii barbarka ah oo qabaa'il aad u xoog badan oo tiro badan oo wadanka joogay kuwaas markaa sanad u ah waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay inaad nala duusho oo aad nala qabato khilaafadii islaamiga ahayd oo ay gacanteeda soo gasho ninkan ay u tageen Barcelona haysta
ودول كي يرى جزية بحين شري وعبد الرحمن الناصر جزية سين شري ومن بعد هنا الحاج المنصور با جزية كغاد الشري نكي جزية بحين يبين انت وتجان بواحد هذا نروح نربنا إن أدنى لفرته وضنكي أو ماشي نلقبته أمير برشلونة وحول وصفي عن لكن بالشروط شروط باندقانية شروط السبان دي كل الدولية وما حيبا لي شروط هذا والله من نودس كسرني اللي عيدا ما هيستاني وحول عيد مدينية وحينا كلام مركا كان سطان أنا قد دجالكم أنتوا السعودة بيقول مالك استوى دجال كاس السعودية بقول دينار أو ذهبية برا وبقرطية إلى هذا عشورة مالك استوى دجالكم السعودية دولة برشلونة إلا سيا بقول دينار أو ذهبية كو عيدا ما ندنسينا يا عيدا كان ندنسيا عسكري كاستوى دجال قاله waxaan rabaa hal diinaar oo dahabiya in maalintii la siiyo askari kastoo dagaalka gala hal diinaar oo dahabiya inuu helo afar waxaan rabaa bulay dagaalka markaynu gallo ama saddex dagaalka markaynu gallo hadii aynu jabinno khilaafadii naasi wixii hub la qabsado inaan anigu qaato dawladda Barcelona inay hub ka qaadato afar waxaan rabaa buu yiri مدينة سالم لا يراهده oo mudankii uu furtay Cabdiraxmaan Naasir ama Cabdiraxmaan Thalith ninka la oran jiray dhulkii uu furtay magaaladaana in muslimiinta laga soo wareejiyo aniga gacanta la igaliyo afarta sharti hadaa aqbalaysaan way idin la duulayaan boqortooyada maalintiiba 100 giniya oo dahaba 100 diinaar oo dahaba askari kasto caynkaasiya waliba askarta wadankii wuxuu cilaamiyay in nimankii muslimiinta ah lagu duulayo wariya tatawucaya buu yidhi duulaya oo waliba lacag helayo maalin kasta hal gini baa la idin siinaya dadkii baa askar bay soo qoreen waxa la yidhaahdaa anaga duulayna la meesha lacag baa ka furantay duulimaadkii baa intiiba uu ka aqbaleen waxay yidhaahdeen intaaba waa ku saxeexnay in la duul intii markii loo saxeexay ay la duuleen waxay jabiyeen markaasi Sulaymaan ibn al-Hakam iyo barbarkii la socday sidaasay Barcelona madiinadii Salim la oran jiray ku qabsatay wixii hub iyo qanaa'im la helayna qaateen ee muslimiinta laga furtay mahdina xukumkii uu ku qabsaday oo magaaladii Qurtuba uu dib ugu soo noqday muddo yar markii la joogay labadan inay soo wada duulay dawladdii hore isku dileen oo iyaga laftooda heshiis ma aha al-Fath al-Waadix ba makiida u dhigay oo mahdigiina isna uu ka takhalusay meeshii isaga isu dhigay laakiin dawlad al-Aamiriya fikradeedii buu qaato wuxuu yiri warkaliga mala lagu ogolaan maayo dawladnimadee nimankii amawiyiinta wax ka raadi المؤيد بالله هشام بن الحكم بن عبد الناصر كي غوريga ku xidhnaan jiray oo meel iska joogo soo helay markaas uu war khilaafadii baa soo dhiciya kaale mar dambu ki kameesha laga qabsanaya waa walaalkii wa Sulaymaan ibn al-Hakam هشام ibn al-Hakam buu soo ka haystay Fath al-Waadix dabeetana wuxuu yiraahdaa adigu noqo boqorkii meeshii buu iska fadhiistay kiina Sulaymaan ibn al-Hakam baa meeshii qabsaday waxaan leeyahay Fath al-Waadix ayaa meeshii qabsaday Sulaymaan ibn al-Hakimna waa leeriyay gaaladeeg sibay baratay Sulaymaan ibn al-Hakim isna wuxuu yiri bal malik qishtaala dib ugu noqo hagaal aan in adigu dib u laabto wuxuu tagay alfansihi ka talin jiray qishtaala ee berigii horena saaciday mahdigii la riday Maxamed ibn Hisham ibn Abd al-Jabbar ninkii meesha kala qaaday waxay yiraahdeen meeshii nalaga qaad de mar damaan rabnaa inaad nala duusho saasmiyaha bal saddex cashay suga buu yiri saddex casho hal ay sugo saddexdii cashay uu joojiyay ayuu boqorkii qashtaale haystay nin buu soo diray qoladii kan inqilaabtay buu u tagay oo nin u diray wuxuu yiri halkan waxa ila jooga Sulaymaan ibn al-Hakam oo raba in la soo duulo waxoogaa ana de ballan qaadana waan ka hayaa maxaan kaga hadhi karaa idinku ay siineysaan dad rabtaan in aan la soo duulin waxa la yiri waxa allaaliya waxa qalcad muslimiintu leedahay waqooyiga ku yaala qaado
ha soo duulin nimankaa ha soo raacay boqorkii qishtaale waxaanu filayn baa u soo baxay waxyaabihii la kala doorransiiyey waxaa ka mid ahaa markaa qalcadaha waqooyiga ku yaalle waaweynee xusuntii muslimiintu lahayd in isaga la siiyo duulimaadka ninkanna uu ka hadho wuu aqbalay markaas sulaymaan ibn alxakam duulimaadkiisii buu iska daayey isna wuxuu qaatay qalcaadkii waqooyiga ku yaallay muddadaasi kooban ee waxaasoo dhamme dhaceen aan ka warramaya waa 3 sannadood gudahood waa 400 ilaa 403 3 sannadood gudahood baa waxaasoo mashaakili dadka ku dhaceen sulaymaan ibn alxakamkii haddana barbarkiibuu dib u kiciyey meeshii ma joogin waa soo noqdeen qurtabuu soo galay magaaladii buu fasahaadiyey kufsi dumar dad la laayo wax walba wuu sameeyey ninkii almustaciin billaahi la odhan jiray la baxay hishaam ibn alxakamkiina meeshii buu ka eriyey meeshiina dib buu qabsaday waxaasoo dagaali waxay dhex marayeen waa 2 nin oo walaala ah qolabana qole eriyanaysay muddo aan badnayn ayaa fitankaasi soconayeen wakhti yar kadib ayaa qoladii barbariyiintii ninkan waday baa waxay dhaaheen horta heedha maxaynu ninkan u wadnaa maynaba meesha qabsanno intaynu wadno ninkan umawiga ee sulaymaan ibn alxakamka maynu sulaymaankaba ka takhallusno inagu qabsanno iyana meeshii bay ninkan ka qaadeen waxaaba qabsaday meeshii gebigeediiba nimankii barbariyiinta ahaa cali ibn xamuud nin la odhan jiray waa qurtabo qabsaday walaalkii qaasim ibn ishbiiliyuu u dhiibtay dabeetana meeshii bay qabsadeen caamiriyiintii oo almurtada billah ninkii la odhan jiray la socdaa soo noqday dagaalla badan baa dhacay kullu haada maxaanu tilmaamayaa waxaanu socdaa uun waxoogaa yar inaan tilmaamo dawaama ayay gashay dowladda islaamiga ee meesha joogtay marka ay taariikhdu maraysay 422 meelahaasi ee warkii loo adkaysan kari waayey maalinba meel mid qabsaday ee dhibtii tiro badatay ayaa qaadigii magaalada qurtuba loo yimi waxa la yidhi sida tan loo adkaysan maayo maxaa la yeelaa wadaadadii waa shireen dabeetana waxa la yidhi khilaafada baan ridna abulxasam ibnu jahwar qaadigii la odhan jiro nin cibaado badan cilmi badanna ahaa ayaa madax laga dhigtay waxaa la riday khilaafadii ama dowladdii meesha ka talinaysay markii burburkeedii tiro batay dabeetana waxaa la iclaamiyey majlisu shura majlis la yidhaahdaa inuu ka talinayo qurtuba magaalada loo yaqaano khilaafadiina inay dhacday dowladdii khilaafadii islaamiga ahayd ee andalus ka jirtay waxaa lagu kala diray shirkaasi uu qabtay abulxasam ibn aljahwar caalimkaasi la odhan jiray iyo culammadii la socotay waxaana la goostay in majlisu shura uu ka taliyo waddankii laakiin waddanku wuxuu iska noqday waddan dhibaato tiro badan ay ka jirto qabaa'il u kala googo'an waayo waddanka waxa deganaa dad carabta deganee tirada badani gaar ahaan 2 qabiil bay u badnaayeen carab reer mudar ah oo ah carabtii xijaas ka timi iyo yeman iyo carabta qaysiyiinta loo yaqaano oo reer shaam ahaa waxaa kaloo joogay barbarka oo qabaa'il aad u tiro badana waxaa kaloo joogay qabaa'il ama dad loo yaqaano asaqaaliba saqaalibadu culamada taariikh dadkan ay saqaalibada ku sheegaan waxa weeyaan 3 qaybood baa loo qaybiyaa saqaalibada kuwa yidhaahdaan saqaalibada galbeedka oo waa boolandiyiinta iyo jeek iyo slovakiyiinta iyo kuwaasi kuwa loo yaqaano saqaalibati sharq oo waa ruusiya alkibaar iyo ukrainiyiinta ama ruusiya siqaar oo balorasiyiinta iyo wax la mida iyo saqaalibada junuubka oo ah yurubta koonfureed kuwa jooga dadkan intooda badane waxay ahaayeen dad waddanka jarmalku intuu duulo oo caruurtoodii wuxuuda soo qabqabsado iyo adoonnimo loo iibin jiray dabeetana mujtamac dhan sidii mamaaligtii atraakta ama masar oo kale qabsatay dad noocaasay noqdeen marka waa qabaa'il tiro badan oo iyaguna waddanka degan
markii ay dhacday in dawladdii khilaafada ahayd ay baabaado loo soo guuro majliskaasi shuurada ee culimmadaas sameeyeen waxaa dhacday inaanay iyaguna xukumin magaalada intanna ay magaalada joogaan mooyaane waddanka intiisa kale aanay xukum xoogan ku haynin sidaa daraaddeed waddankii wuu kala googo'ay waxaa soo baxay 22 dawladood oo cusub andalus meel yar bay ahayd andalus waxaa lagu tilmaamaa inay ilaa 600,000 meelahaasi in ku dhadhow 600,000 oo kilomitir isku wareega inay tahay يعني waddankii Soomaaliya 627 buu ahaa Soomaaliya in leeg rulahan marka la eego Soomaaliya oo 22 dawladood noqoto qiyaas reer waliba intii yareeyay uu haystay intuu goostay ayuu dawladda iclaansaday marka hore 7 qabiilo waaweyn bay u kala googo'een Banu Abaad niman la yiraahdo oo Ishbiiliya iyo gaarkeeda qabsaday niman Banu Ziri la yiraahdo oo Qarnaata iyo gaarkeeda qabsaday Banu Jahwar oo qaadigeenu ka warramaynay oo isagu Qurtuba iyo manaatiqda ku xeeran qabsaday Bani al-Aftas niman la yiraahdo Berberiyiina oo iyaguna qabsaday Batlios magaaladan la yiraahdo iyo inta u dhadhow Bani Dhanun nimanka la yiraahdo oo qabsaday Tulaytila Toledo magaaladan la yiraahdo iyo inta u dhow Bani Amir nimanka la yiraahdo oo iyagu qabsaday Valencia ama Valencia meeshan la yiraahdo Banu Hud oo yana qabsaday Sarqasta ama Saragoza magaalada la yiraahdo iyo inta u dhow waa Spain tan yare arkaysan ee Portugiiskan intan oo 22 dawladood loo qaybiyay Portugiiska iyo Spain oo la isku daray oo waliba qaybta sare oo dhan Lyon iyo maxaa la yiraahdaa Qishtaala iyo qaybtan Barcelona Aragon dawladii loo oran jiray intaasina dawlado kale Kristaan ay ka sameeyeen intii ka hooseysay ee muslimiintu haysteen ayaa waxa loo kala qaybiyay 22 dawladood taasi waxa soo baxday markaasi qabiil wal ama reer yaro waliba intuu meel qabsaday ayuu dawlad ku sheegay meel yaro kasto dawlad lagu sheegay waxa loo samaystay nin madaxweynaha oo amiirul mu'miniin sheegta magaalo waxa haystaa waana laqabka la yiraahdo amiirul mu'miniin buu haystaa ciidan buu leeyay wasiirru leeyay lacag buu daabacday gaar oo rasmigii madaxtooyadiisu ku yaalo safiirru leeyay uu dirto nin waliba dawlad wixii ay sheegan jirto dhan ayuu sheegtay dabeetana waxay noqdeen dawlado yar yar oo 22 oo 22 kuba ay col yihiin oo mid waliba walaalkiisa ugu dhow ee muslimka uu iska eegayo si uu walaalkiisa u dhow muslimka ugu xoogaystana dawladaha gaalada markaasi ka xoog waaweyn mid kamida uu dabada saaray ama se uu ku tiirsan yahay taasi waxay keensatay in gabayaagii la oran jiray al-Hasan ibn Rashid sidoo imaam Dhahabi siyarkiisa jiska 17aad safxada 144aad ku soo naqlinayo inuu gabayo yiraahdo mimma yuzahiduni fi ardi andalusa سماع معتصم فيها ومعتضد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد يعني قبياغا سي مسلم كابا وحلي وحيابها نغت جيب أندلس وحا كم دبولي دولك أندلس وحا نغت جيب مغاعيدا انترادا بدن لمعتصم معتضد المعتصم بالله المعتضم بالله المرتضم بالله المؤيد بالله مدوى لبا لقب كي مدحتويد ولا هان جرتيب ولا بحي waxaan ka fogaaday waxa kamida buu yiri magacyada tirada badan leh ay nimankaas la bixeen wa alqabu mamlakatin fi ghayri mawdi'aha bulay wa magacyo dawladeed oo aan laakiin meel dawladi joogto loo bixinin kalhir yahki intifakhan sawlat al-asad بعض الروايات سورة الأسد بينها وسيدي بو يري ان على هذا عريغي جيرka libax iska kiciyay curri haduu giir iska kiciyo de libax noqon maayo waa bisadii uu intay giirka iska kicisay giir libax soo ekaysiisay buu leeyahay la mid yihiin yani dawladda maaha waxa bilaabmay waqtigan waxa ay taariikhda loogu yaqaano asru muluk at-tawaif 422 ilaa 483 buu socday 422 ilaa 483 waa waqtiga la baxeen marka muluk at-tawaif ملوك الطوائف oo qaybaha aynu soo sheegnay ee 20 ku dhadhow waxay caan ku noqdeen
كو ضد طرف جعل بيها ينو نمعيستي ودناد ولعجيستي نمعيستبا لجوجوستي دبتنا waxay noqdeen bay leeyihiin dad tumasho heeso bariis iyo baastiyo wax la cuno oo laga shaqeeyo cuno oo laga waramo mujtamac nooca u koray bay noqdeen bay leeyihiin waa mar labaad waxay noqdeen mujtamac duwaylaad yar yar oo dawlad waliba culka ugu weyn ay leedahay uu yahay kan yar kale u jaarka reer hebela meesha yar ay haystaan waxa soo baxay bay yiraahdaan munkaraadkii oo dib u soo noqday iyo fusuuqiyo wixii la mid ah waxyaabaha aadka u foosho xun la soo korayna waxa ka mid noqday dawlad waliba si ay u jirto kuwan yar yar kamidi waxay dhabarka saartay dawlad kamida dawladii gaalada ee roona ama iyaga ka xoog badnaa markaasi ayay mid waliba dhabarka saartay waxyaabaha ka sii foosho xun la meesha tan ka soo baxay waxa kamida dawladaha yar yar intooda badani waxay bixin jireen jizya si ay u jiraan yani waxa taariikhda ku daraasayn jirteen dawlad islaamiga jizya qaada kuwan iyaga jizya bixin jiray waxaana la siin jiray maliku qishtaala iyo boqorada kale u dhow ayaa jizya ka qaadi jiray duwalkan yar yar sanad walba waa cashuurta ku soo dalaciyo lacagta laga rabo inay soo diraan intii hore laga badinayo iyadoo la leeyahay waxa la ilaalinaya nabadgelyadaada iyo dadkaaga iyo mujtamacaaga lagu ilaalinaya waxay soo baxeen boqorro yar yar markaa nin waliba meeshiisa sidii u xejisto un dawlad weyn oo gaaleedu ku tirsan iyadana intuu lacag siiyo uu yiraahdo kuwan kale ama magaalo iga qaad ama igu yaro durki ama aan kan magaalo ka soo qaato waxa la isku hayo dhamina waa magaalo aan ka riixdiyo magaalo kaas ay iga riixdo xad bay gaadhay ibn Hazm al-Andalusi caalimkii la oran jiray uu yiraahdo weedhaadu laadica wallahi law alimu anna fi ibadati as-sulban tamshiyatu umurihim labadaru ilayha فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم يحملونهم أسارى إلى بلادهم وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفا من سيوفه وأود ابن حزم ابن حزم باوحو قاعدين ويداهدو إلهي بان كل دارته هدي أيو قادان بيدو كون مدحض الشيغانية عبادة السلبان كرسك إن يعبدان إن الرمود وقفضان يانا أرنتو كلا سعونيسو واسك عبد أيام بيدي رضنا ما ضحضا بيدي دي ما أنت الله يرادو كرسك عبدان رميه سوا وكلا سهلانان أيام آد وصبير أيام بيدي ساسي درادات بيدتك مسلمين تا حرم كودي يا دمر كودي يا أبنادودي يا رقودي با iyagoo maxaabiis loo qaadaya buu dhulka gaaleed oo lagu xidhanaya magaalooyin dhan oo muslimiintu lahaayeen baa la siinaya buu leeyahay iyo qalcado dhan oo muslimiintu ay lahaayeen oo islaamka inta laga tirtiro naaqus laga dhaxtaagaya buu leeyahay ilaahay dhamaantood ha nacdalo oo seef siyuftiisa kamid ah Allah ku itixaamo buu ku gabagabeeyay waa wadaad cadhooday waxa ka muuqata yani wuxuu dareemay sida ay wuxuu u jiraan duwalkan yar yar waxay ku caan baxeen runtii xaakim waliba inuu meel yar intuu qabsaday dawladnimo sheegtay dawladii sayriin aanay jiri karin ilaa iyo dawlad gaaleed oo kale dhabarka saaro mid waliba ninka ku xigay muslimka inuu col leeyahay ka foge kale gaalkaana inuu lacag siinayo ama jisyo uu bixinayo casriga caynkaas ee Andalus dhibtaasi ay haysatay sida ay u kala daadatay waa casriga ugu culamo badnayd hadana taariikhul islaam marka dib loo daraaseeyo waa waqtigu ibn Abd al-Barr noola 463 kii buu dhintay casri tawaif dhexdiisu dhintay waa waqtigu noola Abul Walid al-Baji 447 kii buu geeriyooday waa waqtigu noola ibn Hazm 456 kii buu geeriyooday ووقتك نولا ابن حيان أفر بقولي سجالي لحدن كيبو جريودي ووقتك نولا ابن السيدي أفر بقولي شني سديتن كيبو جريودي وحو علماء دي وجوبنا تاريخ ده يتلمامته عصر طوائف بين نولاين ملوك الطوائف وقتك كريت لينيه بل الإمام أبو الوليد الباجي باجدا لون اسبانيا وباجا ومقالي يروكو تالله برتغيسكا أبو الوليد الباجي عالم كان لورن شري مركو أركيد دول كان يريرا مسلمين تيسي وكلا داتين يو دبعتها هيستا صدن سنادات بودح سعودي يسقول مدوبة صدن سنادات بالله إذا مقال كستو كتر سنة مميل كستو أندلس كم ده صعد بو كمري يسقول كل واقعي دت كان مسلمين تيني مدوبان الله يسوي معده وكابن حزم
كتاب كيس نقط العروس لا هذا نقط العروس كتاب كيس لا هذا بوحيدي فضيحة لم يقع في الدهر على مثلها حترتبوا فضيحة أن تاريخ ابن آدم كهروس وشيقين بيدي 4 رجال في مسافة 3 أيام تسمى كل واحد منهم أمير المؤمنين بيدي أفرنين ومسافة صدح مع الموضوع كلا صعودة مدول ما أنتم ما يركد دقي بيدي وشيكتي أمير المؤمنين إنه يجي مؤمن كردن بأميرو يجي أفرتان مدول ما مؤمن كردن أمير نمدي سشاقنا يا صدح 10 صعودة ولا قتل لا ما شيء دقي نينك عادي مالتي 40 كيلومتر بصعدة صدح 10 waxa laga yaabaa 120 kilomitir in la socdo waa 120 kilomitir dhul ah oo afar amiirul muuminiin joogto oo nin waliba meel ka talinayo oo khataba lahum biha fi zaman waahid oo afar tababu yiri waqti qura khudbada jimca mid walba amiirul muuminiin inuu yahay loogu duceynayo oo khudbada lagu akhrinayo buu leeyahay markaas wuxuu tilmaamay afarta kuwa kala hayeen mid waa khalaf al-husari buu yiri oo ishbiiliya ala annahu hisham al-muayyid waxa jira hisham al-muayyid kii oo culamo taariikhda qayb kamid ay qabaan in waqti hore dhintay ayaa waadan baa nin qaadiyo meel haystay baan nin ku yiri waxaan arkayba hisham masaajid yar halka fadhiya dabeetana nin baa loo keenay war hisham kan yaa garanay inuu ninkan hisham al-muayyid yahay mid la yiri shaqaalihiisa baa la raadiyo waaba isagii baa la yiri dib baa loo magacaabay isagoo boqorkii al-muayyid billah bari horana taariikhda qoraysa inuu dhintay markaas wuxuu leeyahay khalaf al-husari baa ninkan la oran jiray oo isagoo magacii ninkii dhintay sitaba boqornimo loogu khudbadaynayay ka labaadna waxa uu Muhammad ibn Qasim ibn Hamud oo jaziirat al-Khadra meesha la yiraahdo marka la soo galaba Andalus xagga hoose Tanja iyo marka laga soo galo goobta koowaad ee la yimaado al-Jazeera al-Khadra meel loo yaqaano Muhammad ibn Idris oo isagana Malqa magaalada la yiraahdo looga khudbadaynayay iyo Idris ibn Yahya oo Shantarin magaalada la yiraahdo yaani wuxuu tilmaamayaa Ibn Hazm inay ceeb tahay aan la aqbali karin in afar 120 kilomitir inay yeeshaan afar amiirul mu'miniin inay ka soo baxaan waxa gaadhay waqti Andalus taariikhdeedu runtii ma sitira badan ay leedahay waa waqti marar badan aad soconayso akhrigeeda ama ka warankeedu uu dhib badan yahay وهي مركز منقشة طليطلة دعيتان كيديو كله طليطلة وعاصمة دي برجي هريسبين لو قلت لين شري المسلمين تمركز فرتين عاصمة القوط مركز هري هانشرتي الثغر الشمالي بين علماء التاريخ تكت المامان ان ملك الفانسو السادس مركو قبسنا يي نمن كلام مسلمين كل الدولي وعدول المسلمين ولا قبسنا يي ونمن كلام مسلمين كل الدوليان عدة قبسنا سنة ويهي ان ملك قشتالة تاريخ الاسلامي هو اللي ما اركي شري إن المسلمة وكسر دوله كوحك الله مسلمة ووحى الله قبنا يا هنين قال دين قبصده ماشة بل ملك قشتالة أنتو كبري مركزي والفنص الصادس يسقوا واجي هره أبيه مركو بغرطوية ذكرت أنت صدق نينا ولا على بكو قيف صدين مد بعد بتنا اللي بدي كلام سائر يده ماشي كقاضي الفنصان يسقوا قحونتيه بطليطلي يمي طليطلي وشوق شري بقرك طليطلي سود ويا مالها نردم بتصتصي وحيادا مركو صايع والنقطة يا ولا الكيد انتي مركو ولا الكيد انت بغرطوية دي سجى دي بلوسية نكى هالكن قحونتيه كوا هانشري دي بلاد دري ماشي تجي ماشي بدي بقول سود ولا مركو ماشي قبصد الفنسيه إن المدو أفريقيا شوك السيسوية ماشي قحونتيga ka aha ee uu shalayto qaxoontiga ku aha ayuu dib uga soo duulay markii uu la saaray meeshii dib loo saaray wuxuu gaarsiiyay markaasi xad uu gaarsiiyo in jisyada markuu ka qaado yani culimada taariikhda ayaa maasida markay ka waramayaan maasida qaar kood yani culimada taariikhda kamid waxay warinayaan inuu soo diray nin kamid ahaa boqor wasiiradiisii oo yiri lacagtan la isiinayo jisyada si fiican u soo baad lacagtu de waxay ahaan jirtay dahab iyo fidda marka lacagta laga qaadanayo nimankan naaqidiinta ah ee baa jira waxaan eega inuu real yahay iyo waxde macdan aan real ahayn inay tahay marka lacagtii markii laga ururiyay wixii
المعتمد بالله كي لو oran jiray meeshiisa markii la joogay ayuu wuxuu ku yiri boqorkii arrin kale uu soo faray waa boqorkii yaraa qashtaala haystay ma maxay buu arrinta kale uu soo faray boqorkii wuxuu yiri waxa gabadhaydii baa umulaysa dabeetana nimankii qisiisiinta ahaa wadaadadii baan la tashaday tala waxa la ii sheegay in loo baahan yahay si aan muslimiinta uga xoog bato oo aan ugu wada qabsan karo in islaantaydu ay ku umusho masaajidka Qurtuba waa codsi uu soo qortay maliku qashtaala boqorkii al-mu'tamid billah ishbiliya ka talin jiray ayuu wuxuu leeyahay Qurtuba isku haystay buu wuxuu leeyahay waxa loo baahan yahay boqorka habartiisii baa umulaysa inay ku dhasho مسجد قسطالة مسجد قرطبة سعد كوين قرطبة يعني واحد تنكين يا واحد ويان ومركو الدرامي دتك كرينا دتك كلالومي oo liita oo midba ku xigay iska eegayo oo midna aanu kaligii markaa iska celin karin ama aanu wax iska rabi karin uu yahay uu ka qabsaday magaalada Tulayt la oran jiray ayaa codsigiisu xadka kan gaaray taasi waxay sababtay inuu xoogaa naqwa qaado ninkii safiirkiiba uu dilo loo soo diray oo dabeetana rabshada ay dhacdo oo ninkii duulimaad soo qaado oo mashaakil tira badan ay u dhaco ilaa xad markii dambe boqoradii yaryar ay soo yimaadeen oo yiraahdeen war maxaynu sameeynaa wadankiina difaaci kari mayno markaas ay yiraahdeen aanu nasriga aan soo waaridno waraan caalamul islaami dib u eegno shimaali afrika ama shimaali afriqiya north africa دولة عصبة كان دلتي دولة المرابطين اللي oran jiray oo markaas uu ka taliyay nin salafi ah oo la oran jiray Abdullah ibn Tashfin Yusuf ibn Tashfin la yiraahdo uu ka taliyo waa oday 8 jira oo faraska fuushan hadana dawladii ninka iska talinayay bay u dirteen caawimo inuu soo siiyo dabeetana hadana iyagii baa dhexdoodii shakiyay waxay yiraahdeen hadduu inaga ka ciyaar muu ina qabsadaade ديبا ونكن نجري حارم ويسووا ماشى قبصدا ما نتاسي waxay ku tilmaamaan al-mu'tamid billah ibn Abbad kaasi go'aan adag buu maalinta qaatay wuxuu ku yiri wallahi la nar'a inaan geela ku raaco saxaaraha ayay dhaanta buu yiri inaan khanziir raaco yani inuu ninkaasi meesha baa soo qabsado oo geela ay dirto baan ka door bidaya in qashtaala intuu ay qabsado khanazirta la raaciyo buu leeyahay dabeetana waxay qaateen go'aanka in muraabitinta loo yeedho Yusuf ibn Tashfin iyo ciidamadiisii baa yimi waqacda caanka ee zallaaqa loo yaqaan ayaa dhacday waa waqacad taariikhda aad ugu caana dibna loo jabiyay qashtaale iyo nimankii ka talinayay markaas dib loo jabiyay isaga darka ku baxsaday ciidamadiisa dhamaantood meesha ku jabeen qisaska taariikhiga ee masaa'ilkan ku saabsan mar rabo inaan balbalaadhiyo laakiin waxa aan rabaa inaan tilmaamo mujtamacu markuu dhexdiisa isagu uu isnaaco dabeetana uu noqday yaa kursiga ku fadhiya kadibna tuulo waliba madaxweynaha ay samaysato waxa iska ilaalinaysaa ay tahay tuulada kale ku xigta isaguna uu waayo waligiiba magac dawladeed ha sheegto lacag ka samaysto wax yar ha qorqoro laakiin uu waayo muqawamaat alxayaa qaabkii loo noolaan lahaa uu waayo oo noqdo waxaan isdifaaci kareen ama waxba iska celin kareen waxay noqonaysaa inuu taxta saytarati dawlatin ukhra dawlad kale inuu iyada ku hoos noolaado oo wixii loo yeeriye kasta uu aqbalo si ay tiisan yari u jirto 22 dawladood baa muddadaas yar meeshan ka talinayay oo midba ka ku xiga uu iska ilaalinayay oo dawladan kale ee meesha taala uu rabay inuu haddana nimanka waxa sameynaya dhan kale faqri ma hayn xolalaani ma jirin waa waqtiyadii ay ugu badnaayeen waa waqtiga yawmutiin ay dhici doonto waa taariikhda waa maqashaan yawmutiin kala sheego nin boqorada kamida ayaa islaantiisii boqortooyada xagga sare fuushay dabeetana iyadoo roobda ay bay waxay aragtay dad wadada lugaynaya oo dumara oo cagaha dhoobo intay ka yara fayteen dhoobo dhex socda markaas waxay tiri boqor aniguna waxaan doonayaa inaan dhoobada soo yara batalaqsado dabada u baxo qofka bini aadamka waxa caadiya inta ka maqan uu bini aadamku moodaa inay tahay nimcada rasmiga imka ninka baadiyaha jooga ee aan waxba haysanin talow daaraha dhaadheer mar uu yaa fuula buu isleeyay
kan daaraha dhaadheer fuushanina yaa buuraha marun kora buu isleeyo soo carcarara bannaankaasi oo hiita yar buu dhisanaya waa nolosha bini'aadamka caadiga ah yacni qofba inta uu haysta mooyaane inta kaluu raadceeya u arkaa inay raaxa tahay oo inuu soo sameeyey waxaas islaantan boqorku qabo 800 hablood baa la yidhahdaa dad ku dhadhow baa shaqaalaheeda ahaa u shaqaynayaan waxay jeclaatay inay dabadda u baxdo dhoobadaasi ay soo yara batalaqsato ay soo socoto dabeetana wuxuu yidhi boqorkii waad batalaqsanaysaa wuxuu amray tiinatul muluuk in loo sameeyo dhoobo boqortooyaha loo sameeyo buu yidhi waxaa la soo gaday waddanka wixii miski iyo cambar iyo wax la isku udgooneeyo dhan yaalay dabeetana hal la cajiimaa la yidhi wixii baa la isku cajiimay meel bannaana loogu sameeyey aagaamo yaryarna waa loo soo iibiyey ay xambaarato dabeetana waxaa la yidhi halkaasi ku batalaqso waxay ku batalaqsatay markaa dhoobo laga sameeyey miski iyo cambar iyo waxaa waa kuwa culammada taariikhdu sheegaan inay beri bay islaantiis qabteen markaasay tiri wallaahi maa ra'aytu minka khayran qatu weligay wanaag kaama arag nama maalintii dhoobadana buu yidhi xataa yowmu tiin ayuu tilmaamay baa la yidhaahdaa ibnu cabbaadkani weliba wuxuu ahaa nin gabayaaya aad u gabay badan buu ahaa walidaalik akhiiran horta xabsu ku dhintay isagu dowlad muraabitiin baa qabatay oo la xidhay magaalo yaroo maroko ku taalla ayaa lagu xidhay magaaladaasuu ku dhintay nin aad u gabay badan buu ahaa gabayadiisa cajiibka waxaa ka mid a maalin ciideed isagii markii la xidhay reerkii la masaafuriyey meeshii dowlado kale ka dhaceen oo qabsadeen ayaa waxaa ku dhacday maalin ciideed buu wuxuu arkay carruurtiisii hablihii uu dhalay oo kabala oo caguhu dee dildilaaceen oo islaantiisuna islaan gabayda bay ahayd oo adiibada oo macruufa la yaqaano islaantan uu yomutiinka ku maamayey oo islaantiina iyana reerahay maryaha u toshaa boqortooyadii iyo nimcadii waxaa ka dambaysay qaxoontinimadaasi isna uu xabis ku jiro islaantanina ay reeraha u tosho marada ay u tosho maalintii dambe carruurtiisii u timo gabay aad u macruuf u tirinayey oo marka dambena uu ka gabyayo cagaha hablihiisa buu ka gabyaya uu leeyahay waxaad moodaa maalinna inaanay qoladii dhoobadii ku socotay yacni maalinna inaanay qoladii miskiga taabatay ahayn baad moodaa gabay abuu tirinaya aad runtii gabay calaacal badana oo uu odhanayo yacni ninka iga dambeeyow adduun yacni farxad male waxba waxaad haysato isku dhoobadiiba waxaanu ka joognaa buu leeyahay kabala-aantaas gabay abuu tirinaya waxaan uga jeedaa may la'ayn dhaqaale lama la'ayn ama dad aan hanti haysan may ahayn dad dacfi kale ka jira may ahayn laakiin waxa ugu badanee meesha tan ka jiray wuxuu ahaa khilaafkaasi mujtamaca soo dhex galay iyo kuraasidaasi yaryara la isku qabsaday iyo mabaadi'dii kulliga ahaayee la haystay oo la ilaabay oo loo noqday markaasi in dowladaha kale dhabarka la saaro oo la isku dayo taariikhda andalus meelo qurux badan iyo meelo liidataba way leedahay meelaha kan laakiin aan ka warramayo ogaan baan u doortay waayo horaan waxaynu u soo nidhi taariikhdu waa bayjaj maalinba bog la rogoo la akhriyo bog kastoo aad joogta waxaad arkaysaa bog horeo taariikheed oo uu la mid yahay dad maanta arkayso duwal yaryar oo tiro badan oo muslimiina 200,000 kun iyo 500,000 kun inta meel fadhiistay yidhi dowlad baanu nahay